السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة وناكسن صاحب بيال ميل كستا أو أدى على الدنيا ذا كجوتان وحردين رجينيا وناك ينبض قب تروا قيبت الطبنات اتحانيهنا أورلاندو كاردوسو أو أها أسكريكي كوبانك أها أي دقالكي سوماليا يتوبيا كوقبتين عيدا مدي حوق دالك الصوماليات قيبتي استقالات وحا أي قصدو إنو مريسي إستاقو أونينكي قعنتا لغو ديغي dagaalkii ugu dambeeyay ee dhexmaray Soomaaliya iyo Etoobiyana lagu qabtay ninkaasi waa dagaalkii ka socday gaar ahaan aagan agagaarka magaalada Harar ku soo dhawaada saaxiibayaal qaybteena tobnaad ee taanaan xusuus qorka Orlando Cardoso waxa uu ku bilaabay sidan ciidamada Soomaalida ee hawlgalkan weerarka ah nagu soo qaaday ee sida xiriirka ah maalmihii ugu dambeeyay aanu dagaalka kula jirnay waxa ay ahaayeen kuwa aad u qalabaysan oo aad u hubaysan sidoo kalena aad u habaysan waxa aan isweydiinayaa goorma ay madaxa ka tooganayaan mise way ku daynayaan oo maxbuus ahaan ay ku haynayaan waxa muuqata in aan qadar aad u kooban rajo ka qabo in ay badbaadeen qaar badan oo kamid ah asxaabtaydii ciidamada Kuuba ee dagaalkan nagula jiray iyo sidoo kale askartii Etoobiyaanka ahaydba inta dhimatay ciidamada Kuubaanka ah marka laga tago ma jirin askar kale oo maxaabiis ah oo la qabtay kuwaasi oo ku jira askarta Etoobiyaanka ah ee iyaga maxaabiis ahaanta loo qabtay kuwa meesha ka baxsaday ee ku badbaaday jeexjeexyada iyo kaynta dhexdooda ayay ka mid noqdeen ma aanan hayn tiro koob rasmi ah oo maalintaasi laga helay dhimashada ciidamada Kuuba balse ciidamada Etoobiyaanku aad bay u badnaayeen dhimashadoodu maadaama ay tiradoodu marka horeba ka badnayd tirada ciidamada Kuubaanka waxa la gaaray waqti adag oo kale markii ay halkaasi in muddo ah igu hayeen waxa soo dhacay amar degdeg ah aniga oo sidii ugu tiirsan halkii ama taayirkii gaariga askartuna ay ilaalinayso waxa soo dhacay amar degdeg ah waxa la amray askartii i haysay in ay dhaqaajiyaan maan garanayn meel ay geynayaan xagee ii wadaan xagee ay ii kaxayn doonaan maxay igu samayn doonaan marka ay i kaxeeyaan inta ay saddex askari sidaa iigu soo dhawaadeen oo ii soo laaceen ayay qoorta i qabteen oo dhulka i jiideen waxaanay amar igu siiyeen in aan istaago oo aan fadhiga ka kaco aniga oo dhib badan iga muuqato aadna u rafaadsan ayaan isku dayay in aan kaco markii aan sidaa u damcay in aan kaco ayaa askari xoog iyo laxad badani ka muuqda waxa uu ii raaciyay laad iyo dharbaaxo kulul oo wada socda markii kooxdan askarta ah ee Soomaalida ahi i jiidayeen dhulka maalintaas gacmaha iyo lugahana aan ka xidhnaa waxaan ahaa mid muujinaya sawirka dhabta ah ee meeshan ka muuqda sida uu yahay xaqiiqa ahaan waxa dhacay dagaal aad u qadhaadh oo kamid ah dagaaladii ugu adkaa ciidankayagii inkasta oo ay geesinimo muujiyeen haddana guuldarro ayay maalmahani noogu dhammaadeen ugu dambaynna waaniga gacmaha iyo lugaha ka xidhan ee dhulka la ijiidayo sidii neef xoolo ah oo loo sii wado kawaankii lagu qali lahaa ama lagu gowrici lahaa mar kali ah meel ka durugsan goobtan aanu joogno waxaan maqlay xagga dambe ee gadaasha ah rasaas culus oo ka dhacaysa waxa dhacaysa rasaas noocyadeeda kala duwan xataa madaafiic waxa aan isku maaweeliyay iyada oo aanay cidina i dareemin in rasaastaasi dhacaysa ay tahay mid weerar ah oo ay soo qaadeen ciidamada Etoobiya iyo kuwa Kuuba si ay noo soo furtaan hoos ayaan iskula hadlayay oo aan intaas isugu sheegay waxaan mooday in la imaqlayo waanan baqanay waxaan isweydiinay rajadan aadka u hooseysan oo ah sidan waxa ay doonayaan in ay i badbaadiyaan waa ay dhici kartaa inay i badbaadiyaan si la mid ah sidayda oo kale ay maxaabiistan badan ee la sii wado ka daba tegayaan oo ay soo furanayaan hadalladaasi ayaa maskaxdayda ku soo dhacdhacay oo aan isweydiinay waxaad si ogaataa in ay tahay rajo aad iyo aad u yar oo aan macquul ahayn inkasta oo ay dhici karto oo wax walba laga filan karo mar haddii dagaal goob ka dhaco jawaabta iyo dareenka ay bixiyeen ciidamada Soomaalidu rasaastaasina ay ka bixiyeen waxa aan ka fahmay markii ay amar ku soo rogeen xaaladda aanu ku jirnay oo ah in la dedejiyo socodka waxaan isiri waa sidii aad niyadda ku haysay ama aad niyadda ka jeclayd waa kuwan saraakiishii ciidamada Soomaalidu amarka ku bixiyay in degdeg meesha looga dhaqaaqo waxaan isweydiiyay haddana haddii ay Etoobiyaanka iyo Kuuba oo wada socdaa ay weerar rogaal celis ah soo qaadaan oo ay helaan ciidamo gurmad ah oo cusub oo dagaalka soo gala soo marka ugu horeysa
ee dagaalka fooda la iskaliyo adiga kugu dhufan maayaan xabad oo madaxa kaa toogan maayaan ciidamada Soomaalidu maxaad la farxaysaa intaas ayaan haddana isweydiiyey su'aashaasi aan isweydiiyey waxa iiga soo baxay jawaab ah in aanay meesha aniga marnaba wax rajo ahi ii oolin ee aan iska daayo su'aalaha iyo in aan hoos isula hadlo waxaan dareemayaa qadar dawakhaad ah oo madaxa ayaa i gurguuraya dhulka ayaad moodaa inuu ila wareegayo ma dhiiggii iga baxaybaa ma suntii rasaasta igu dhacdaybaa sidan ii gelaysa mise wax kale ayaa jira oo dhaawac jug hoose ah oo kale ayaad qabtaa waxaana soo gaadhay askartii gargaarka caafimaad ee ciidamada Soomaaliya waxaanay ii fidiyeen gargaar caafimaad oo degdeg ah oo kooban waxa aan ogaaday in aanay rasaasta igu dhacday jirkayga ku jirin ee ay isartay oo kaliya waxa ay ii sameeyeen dhaymo fudud waxaana igu duubeen walxaha lagu duubo xubnaha qofku ka dhaawacmo marka uu dhaawac soo gaadho rasaastii xaggan gadaashayada ah ka dhacaysay waa ay sii kordhisaa marba marka ka dambaysa waxaana dareemaysaa in uu yahay dagaal hor leh oo bilowday balse aanu ahayn rasaas ay kaliya soo ridayaan ciidan soo socda askartan nahaysa ee aan gacanta ugu jiraa iyo kuwa kale ee na ilaalinaya ee goobta joogaaba damba kama laha rasaasta culus ee dhacaysa iyo dagaalka xaggan dambe ka bilaabmay kulley waxa ay ka warhayaan waxa rasmi ahaan ay rasaastaasi tahay sidaas ayaan hoosta iska weydiiyey waxa aan ka mid noqday askartii ugu dambeysay ee maxaabiis ahaan loo qabtay ee meeshan laga qaadayo waxa aniga gaar la ii saaray gaari ay saaran yihiin ciidamada Soomaaliya balse maxaabiistii kale ee Itoobiyaanka ahayd waxa lagu qaaday ama lagu daabulay baabuur kale waxa ay gawaarida u kaxeeyeen si xawaare leh oo ka duwan sidii aanu anagu u soconay maalmihii ugu dambeeyay gaari xamuul ah oo kuwa ciidanka ah ayaa dushiisa aanu saaranahay waxa uu leeyahay kuraasta ciidanku ku fadhiistaan ee ku dhereeran ama ku teedsan labada jambi ee sare ee gaariga waxa labada dhinac iga fadhiya laba askari oo aad u feejigan si weyn u hubaysan oo mar walba dhaqdhaqaaqayga iyo dareenkayga la socda kuwa kale waa ay iska sheekaysanayaan qaarkood waxa ay cabayaan cabitaana ay siteen waxa kale oo ay qaadayaan ama ku luuqeynayaan geeraro aan u maleeyay heeso kuwaasi oo aan u malaynayo inay yihiin heeso wadani ah oo dhiirigelin ah oo ay isku boorinayaan hawlgalladan dagaalka waa ay qosqoslayaan aniguna waxa aan ku jiraa xaalad aad u xun niyad ahaan iyo moraal ahaan inkasta oo aan soo dhaamo sidii aan ahaa markii dhaweyd ee ay isoo qabanayeen waxa aan ka codsaday xabad sigaar ah inay ii shidaan aniga oo hab tilmaan ah ugu sheegaya balse waa ay diideen sababtu waxa ay ahayd mabaan arkayn hal askari oo sigaar cabaya ma aqaano in ay marar kale cabaan iyo in ay tahay habdhaqankoodaba sidani askarta gaariga saarani waa ay joojiyeen geeraradii ay wadeen waxaana u khudbadaynaya askariga horjoogaha oo ah ciidankan gaariga saaran waxa uu sitay mid kamid ah askartu oo gaariga xagga sare kaga xidhnaa calanka buluuga ah ee dhexda ku leh xidigta cad waxaanan u fahmay inuu yahay calanka Soomaaliya waxa ay xidhan yihiin koofiyado bir ah oo dhinaca hoose mara ku leh waxa ka muuqata saameynta dagaalka iyo in ay yihiin ciidan in muddo ah dhulkan ku jiray dhulkan ayga ah diriiska ay xidhan yihiin waa diriis midabkiisu isugu jiro boode cagaar iyo barbar sida caleenta oo kale ah haddii askariga diriiskan xidhani dhulkan kaynta ah ee dhirta badan kaaga soo baxo ma kala garanaysid geedka iyo isaga madaxa ayaan hoos u foorarinayaa oo waxaan u muujinayaa in aan ahay mid u hoggaansan amarkooda ah in aanan dhaqdhaqaaq samayn igama aha amar fulin iyo in aan qaadanayo amarkooda balse waxa igu khasbaya danta oo haddii aanan sidan u hoggaansamin waxa aan waayi karaa noloshayda weligaa amarka askarta waa in aad qaadataa haddii aad tahay qof markaa hoos jooga askari ku amraya difaac in aad gasho oo aad iska caabin bilowdaa waxa ay noqon kartaa nacasnimo iyo dhammaadka noloshaada askariga isaga la amrayo ee fulinaya awaamiirta sarkaalka taliyihiisa ahi waxa u bannaan oo keli ah hal ikhtiyaar oo ah in uu fuliyo dhammaanba awaamiirta uu qabo uma baahna ikhtiyaar kale waana habdhaqanka ciidanka gaadiidkiina lagu siday waa ay istaba socdaan waxa sidoo kalena dul heehaabaya diyaarado dagaal oo Soomaaliya leedahay oo laba ah laba mar ayayna dul mareen kadibna dib uma ay soo noqon askartu waa ay aamusan yihiin markii xaaladdu sidan u qabowday ee aanu dheeldheeliga gaadiidka kolba dhinac u leecleecayno
waxaan bilaabay fikir hor leh. waxaan hoosta nacdal uga tuurayay oo aan habaarayay taliyihii amarka igu siiyey in aan ka mid noqdo ciidanka dhulka sii maraya. waa taliyihii ciidamada Kuuba. waxaan sawirinayay askartii ciidamada cirka Kuuba ee dagaalka hiilka ah u yimid Itoobiya oo isaga caweynaya saldhigyadii ciidamada cirka. waxaan lahaa taliyaha ciidanka Kuuba ee howlgelinta dhulka ayaa sidan ku galay. waxaan haddana islahaa xataa haddii aad dhimato oo ay imika askarta Soomaalidu ku dilaan waxaad noqonaysaa nin taalo weyn looga dhiso dalkiisa oo lagu xasuusto geesinimo iyo sidii uu dagaalka uga qayb galay. tan dambe aniga maxay ii taraysaa haddii aan nafteyda waayo ayaan haddana isweydiiyey. jidka oo imika u muuqda mid xun, gaadiidkii waa ay gaabiyeen socodkoodii. waxaan dareemayaa in uu gaarigii taayirka u rogayo. waxaan dareemayaa in aan u soo dhawaanayno goobo ay deganaayeen ciidamada Soomaaliya oo ay saldhigyo ku leeyihiin. waxaa halkan muddo hore ka dhacay dagaalo qadhaadh, waxaanay ciidamada Soomaalidu u joogaan sidii ay u qabsadeen ilaa markaasi, inkasta oo jihooyin kala duwan oo kale ay dagaaladu ka socdaan. saaxiibayaal, qaybteena tobnaad halkaas haynoo joogto. insha Allah qaybta 11aad ayaynu hore ugu sii socon doonaa. dad fara badani waxa ay isoo weydiiyeen maadaama taxanahan xusuus qorkani uu dheer yahay in aan soo koobo. kuwa badan oo kalena waxay codsanayaan in sidiisa loo wado, balse waxaan isku dayi doonaa in aan nuxurka uun soo gudbiyo haddii eebba idmo, walow taxanahani uu dheer yahay oo uu in muddo ah inoo socon doono. intaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.